wacan wanaagsan idil ahaantiinba daawadayaal meel kastood naga daawanaysaan kusoo dhawaada mar kale iyo weliba barnaamijkii dhacdooyinka la yaabka lahaa ee telefishanka qaranka oo toddobaadkiiba aad hal mar ka dheehataan shaashadaha telefishanka qaranka. toddobaadkan barnaamijka dhacdooyinka la yaab kale waxaan idinku hayaa xubno xiiso badan. xubnahaanu kusoo qaadan doono haddii aan hal iyo laba idin dulmaro ayaa waxaa ka mid noqon doona nin isku dayaya inuu gacmihiisa ku qabto leebab isaga oo indhaha ka xidhan. waxaynu kusoo qaadan doonaa rag ku tartamaya inay xidhaan kabaha dhaadheer ee cidhibtale ee ay dumar ku xidhaan. waxaa kaloon idii hayaa oon iyaduna meesha ka madhnaan doonin gabadh iyaduna rabtay inay buugga dhacdooyinka kaga qayb qaadato in iyadoo luqura ku taagan ay xarikarbood samayso. dhacdooyinkaas iyo dhacdooyin kaloo xiiso badan ayaa aan nuso saaca soo socda barnaamijka dhacdooyinka la yaab kale ee telefishanka qaranka daawadayaal idinku soo dayn doonaa ee kusoo dhawaada idil ahaantiinba meel kastoo aad ku sugantihiin. ninkan aan idii soo wado magaciisa waxaa la yidhaha Taylor. waxuu rabaa inuu World Genius Recordka kusoo bandhigo dhacdo ah inuu gacantiisa ama labadiisa gacmood mid ka mida uu ku qabto leebab isaga oo indhaha ka xidhan. haddaba ninkan waxaa laga rabaa muddo hal minida gudaheed inuu gacantiisa ku qabto 4 xabo oo leebabkaasi ah isagoo indhihiisa mara ay ku xidhan tahay. waa dhacdo aada u khatar badan. daawadayaasha waxaan uga digaynaa inay isku dayaan dhacdooyinka noocan oo kale ah ee ay ka daawadaan halkani. balse bal ninkan iyo isku daygiisan ayaynu jallici doonaa ee daawasho wanaagsan. Right, Tyler, you are about to attempt the Guinness World Record, which currently stands at 4. So if you're ready, you can get into position and I'll count you down. dhacdadani waa dhacdo aada u khatar badan. waxaynu ku eegaynaa ninkan lagu magacaabo Taylor. waxa uu rabaa inuu buugga World Genius Recordka kaga qayb qaato oo uu kaga mid noqdo dadka lagaga diiwaangeliyo dhacdo ah in isagoo indhaha ka xidhan lagu soo tuuro leeb dabadeedna uu gacantiisa ku qabto. waa dhacdo aada u khatar badan. daawadayaasha waxaan ugu digaynaa inay isku dayaan dhacdooyinka noocan oo kale ah. haddaba ninkan ayaa waxaa laga rabaa inuu 4 xabo uu gacantiisa ku qabto muddo hal minid ah. bal waxaynu eegi doonaa inuu ku guulaysto dhacdadani iyo in kale. I want to remind everybody we need complete, total silence. Let's get quiet. Three, two, one, go! That first shot was a miss. The arrows travelled close to 40 miles an hour. This takes extraordinary sensitivity And bravery. That's one. Tyler is doing the best he can, but Brandon isn't consistent in placing his shots. And that's 2. And we've got 3. He's 1 catch away from tying the Guinness World Record. He's running out of time. Stop. Well-deserved round of applause for the Burke brothers. Taylor ayaa waxaa laga rabay in uu gacantiisa ku qabto leebab gaaraya 4 xabo laakiinse kumuu qaban oo waxa uu gacantiisa ku qabtay 3 xabo. sidaas darteed lagagama diiwaangelin buugga dhacdooyinka la yaab kale waayo waxa uu dhimay 1 xabo. sidaasna kagama uu mid noqon. dhacdadana waxay noqotay dhacdo guuldaraysatay. aynu intaasi kaga nimaadno dhacdada ugu horeysay iyo weliba barnaamijkeena dhacdooyinka la yaab kale iyo toddobaadkani. waxaad arkayseen dhacdadaasi khatarta badnayd iyo inuu ninkaasi ku guuldaraystay inuu World Genius Recordka ku galo dhacdadaasi waayo waxa uu ka tagay xabad ayaa gacantiisa ku qaban kar waayay isagoo saddexdii kale gacantiisa ku hubsaday. dhacdadani aan idii soo wado ayaa waxay tahay 4 nin oo ku tartamaya
dhacdo ah in ay ku ordaan kabaha cidhibta dhaadheer ee ay habluhu ku xaragoodaan amaba ay xafladaha u xidhaan. haddaba kabahaasi oo khatartooda leh ayaa waxay rabaan inay ku ordaan masaafo gaadhaysa 50 mitir, waxaana loo qabtay in ay ku ordaan waqti gaadhaya 8 ilbiriqsi. bal 40 qofkooda guulaysta ayaynu eegi doonaa daawadayaal iyo dhacdadan xiisaha badan ee aynu jaleecno. All right, let's hear it for the guys. I'm here with the gentlemen who are going to run 50 meters in high heels. Now remember, you guys aren't racing each other. You're trying to beat the Guinness World Record. So you guys ready to do it? Let's do it. Excellent. Let's bring in Stuart right now. Stuart's going to come in. Okay, gentlemen, you're about to attempt the Guinness World Record for the fastest time to run 50 meters in high heels. The time for you to get this Guinness World Record is 8 seconds. So, if you are ready, we may begin the race. dhacdadan cajiibka ah ayaa daawadayaal waxay tahay 40 nin in ay ugu tartamaan World Guinness Record-ka dhacdo ah inay ku ordaan kabaha dumarku xidhaan ee cidhibtoodu aadka u dhaadheer tahay. dhacdadani waa mid khatarteeda leh. daawadayaashana waxaan ugu digaynaa inay isku dayaan inay ku ordaan kabahan oo kale, waayo khatar ayaa laga yaabaa in ay idinkala soo daristo. haddaba 40 qof ee ugu tartamaya inay ku ordaan kabaha dhaadheer ee dumarku xidhaan amaba kabaha cidhibtoodu dhaadheer tahay ayaa World Guinness Record-ku waxa uu ka rabaa inay ku ordaan kabahan cidhibtoodu dheer tahay ee dumarku xidhaan masaafo gaadhaysa 50 mitir amaba 50 tallaabo, iyadoo laga rabo inay ku ordaan waqti gaadhaya 8 sakan amaba 8 ilbiriqsi. waa kuma guulaystuhu kee guulaysan doona? bal goobjoog ayaynu dhacdadan u ahaan doonaa ee daawasho wanaagsan. On your marks, get set. And they're up. Jesse, out of nowhere, and Ash in the outside. waxaanu arkaynaa inay ordayaan oo ay kabahan ku ordayaan. Run, it's Jesse in first. Oh, it's a photo finish. Ash coming across. And yes, there's Leroy diving across the end. Oh, you better work it, girl. Ash got off to a fast start. Unfortunately, he overplays his ability. Just as quickly, he stumbles and falls behind Jesse and Forrest. And Ash wasn't the only one with difficulty. Richie Lillard gives it his all, but loses a shoe in the final meters. And poor Leroy Patterson, he's happy to have made it without For Welton, Of course. your time was 8.68. Good job. ninka lagu magacaabo Mr. Welton ayaa waxau noqday qofkii ugu horeeyay ee isagu soo gaadha isagoo kabahan cidhibtoodu dheer tahay amaba kabaha ay dumarku ku socdaan ee cidhbahoodu dhaadheer yihiin isagoo ku ordaya soo gaadhay xadhigan. ninkani ayaa waxa uu ku soo orday ilbiriqsiyo gaadhaya 8 ilbiriqsi dhibic 8 sakan. sidaasna kumuu gelin World Guinness Record-ka. 40 dhammaantood kamay mid noqon dadka laga diiwaangeliyo World Guinness Record-ka, waayo waxay ku dhammaystiri waayeen waqtigii laga rabay oo ahaa in ay ku soo gaadhaan iyagoo kabahan dhaadheer ku ordaya 8 sakan amaba 8 ilbiriqsi. dhacdadana waxay noqotay mid guul daraysta. Mr. Anderson waxa World Guinness Record-ka ku soo bandhigayaa dhacdo cajiib badan. waxay tahay dhacdadani in uu jabiyo isagoo ordaya balokyo barafyo ah ama barafyo culculus oo isku xidhan. waxaana laga rabaa inuu 10 block oo barafyo ah oo isku xidhan uu jirkiisa ku jabiyo. bal ninkan lagu magacaabo Mr. Anderson iyo dhacdadiisan aynu fiirino. Okay, Stuart. JD, you're about to attempt the Guinness World Record for the most ice blocks broken by a human battering ram. Yourself, of course. The minimum you must break to set the Guinness World Record is 10. And a very important factor in this record is that you must make only one single forward motion for the attempt. Is that clear? Yes, sir. I wish you all the best and you can get into position. Mr. Anderson dhacdadiisani ayaa waxay tahay in uu jabiyo
barafyo isku xidhan oo brokis ah ama qadar barafyo ah oo waaweyn oo isku xidhan. master anderson buugan dhacdooyinka la yaabka leh waxa uu ka rabaa in uu jabiyo 10 xabo oo barafkaasi isku xidhan ah amaba barafkaasi isku yaala. bal waxaynu eegi doonaa ninkani inay dhacdadani u suurta gasho oo uu 10kaasi xabo jabiyo ee daawasho wanaagsan. Go get him. And there he goes. Here he comes to it. 3, 2, 1, go. Oh, let's hear it. Come on. Come over here. Are you kidding me? How do you feel? Any pain? No pain. I left it all on the table, I can tell you that. Actually, you left nothing on the table, JD. You knocked everything off of the table. Great job. Hey, let's hear it for JD. We're going to have to go for a replay. Zach and Liz, let's take a look at it in slow motion. Just look at that force. JD leads with his right shoulder and isn't knocked back at all. The only question, how many ice blocks were broken by JD and how many just fell off the table? Well, it looks like we're about to get an answer. The minimum you had to break was 10. That's right. Mr. Anderson, the number of ice blocks that you broke in one single forward motion was 13. ninka lagu magacaabo master anderson ayaa jabiyey oo world genius recordka ku galay in uu jabiyo baraf waaweyn oo qadarkiisu gaarayo 13 xabo waxaana laga rabay inuu 10 gaarsiiyo laakiinse 3 ayaaba uu dhaafiyey. sidaas ayaa ku mutaystay in uu ku galo buugga lagu kaydiyo dadka la yimaada dhacdooyinka cajaa'ibka ah. aynu intaasi kaga nimaadno dhacdadani waa team ku tartamaya oo world genius recordka doonaya inay ku galaan inay koobab isgelgeliyaan oo ay kala saaraan iyagoo kolba hadba nooc u eekaysiinaya oo guryo amaba kolba qaab yaroo fiican u samaynaya koobabkaasina ka samaynaya. haddaba waxaa laga rabaa 40 qof amaba tiimkani inay muddo gaadhaysa 42 sakan amaba 42 ilbiriqsi gudahood ay iskaga daba maraan oo ay dhacdadaasi sameeyaan. bal dhacdadan iyo world genius recordka inay ku guulaystaan aynu jaleecno. To achieve the Guinness World Record title, you will have to record a time of under 42 seconds. Are you ready? Yes. Let's begin the attempt. You guys got this. Good luck. dhacdadanna waxaynu ku soo qaadanaynaa labadan wiil iyo labadan gabdhood oo isku group ah ayaa waxay doonayaan inay world genius recordka ku soo bandhigaan dhacdadan cajiibka badan ee ah in ay koobabkan lagu cabo ama aagadahan lagu cabo sharaabka qabow ay isgelgeliyaan oo ay kala saaraan iyagoo kolba nooc ka dhigaya. haddaba waxaa laga rabaa 40 qof in ay iska daba maraan. qadarka loo qabtayna waxa uu yahay in ay ku dhamaystiraan daqiiqado gaadhaya 42 sakan. bal waxaynu eegi doonaa wareegan koowaad ee loo qabtay in ay ku guulaystaan dhacdadani iyo in kale. Okay, team, whenever you're ready, you may begin. First one up. Oh, look at the blazing speed. Oh, it's right there. It's got to restack. Get to the side. Oh, what a finish. Clean finish right there. Woo! Here comes Sean. Good job. Should have asked him if the height is an issue here. Up comes Fall. No time to knock them over. What a quick finish right here. Woo! Done. Haley next. Clock is ticking. A little bit of trouble there. Now, she's strong as well. Here she comes. Former fastest girl in the world, right there. Rachel. There's the speed. Wow, look at that motion. Woo! And enough! You weren't kidding, that was fast. I fear that John's rumble cost him valuable seconds. To
To achieve the Guinness World Record title, you had to record a relay under 42 seconds. Your time was 45.883 seconds. Well, they've got 2 more shots. They've got to shave almost 4 seconds off their... sidaad arkaysaan daawadayaal kumay guulaysan in ay markii koowaad ku dhammaystiraan 42kaasi sakan. wareeg labaad ayaa la siiyey, bal waxaynu eegi doonaa in ay 42kaasi sakan ee loo qabtay ay ku dhammaystiraan, inay ka hoosaysiiyaan iyo inay ka badiyaan intaba. Whenever you're ready, you may begin. There it goes. It's starting off again. Much cleaner. Look at that. Oh, he's done the 12. He's got to get that back in place. That is not good. Turn the net. The stack falls there. Good job. Again, I'm sure now to pick up the pace. A little trouble there again. Now. I'm scaling. Make sure his foot is crossed. Much cleaner attempt this time. Has a little trouble there. Hot lights morning and the sweat's getting to him. Former fastest girl in the world right here, Rachel. Oh, she's putting on the speed. Look at that. Finishing strong. Boom. And enough. Rachel made up for lost time, but I'm not sure that it was enough. Okay, team. You had to achieve a time of under 42 seconds. Your time for the second attempt was 43.394. Getting closer. They have one more chance. wareegii labaad ee loo qabtay ayaa waxay ku gaarsiiyeen 43 sakan, waxaana laga rabay 42 sakan. wareegii labaadna uma suurtagelin, bal aynu eegno wareegga saddexaad oo ah ka ugu dambeeya. Third attempt does not follow up that time. Clean finish. That is going to save them valuable time. Here comes the big man. The center down low. John, very clean again. They may have found their groove. He's up and down. John, perfect this time. Here comes Daly. A third clean job right here. Look at this. The fastest girl in the world. Here comes Rachel to bring him home. She is feeling it. The crowd is feeling it. Are they going to be Guinness World Record holders? The Guinness World Records title stands at under 42 seconds. You completed the timed cycle relay in 39.98. labadan wiil iyo labadan gabdhood ayaa wareegii saddexaad waxay ku guulaysteen in qadarkii loo qabtay ay ka gaabiyaan oo ay ku dhammaystiraan ilbiriqsiyo gaadhaya 39 sakan, waxaana laga rabay inay dhacdadan ku dhammaystiraan 42 sakan. wareegga saddexaad ayaa ay ku guulaysteen in dhacdadani lagaga diiwaangeliyo World Guinness Record. halka aad barnaamijkaasi kala socotaan waa telefishinka qaranka jamhuuriyadda Somaliland, stuudiyihiisa dhexe magaalada Hargeysa. daawadayaal, haddii aad talo iyo tusaale noo haysaan, haddii aad dhacdooyin dalka gudihiisa ah ama dalka dibadiisa noo haysaan, waxaad noogu soo gudbin kartaan ciwaanada iyo nambarada shaashada idinka muuqda haddii alla idmo. dhacdadan aan idiin soo wado gabadha soo bandhigaysa ee isku dayaysa magaceeda waxaa la yidhaahdaa Irina. waxay rabtaa inay buugga dhacdooyinka la yaab kale ay kaga mid noqoto dhacdo aad u khatar badan islamarkaana ah dhacdo cajiib ah. dhacdadani ayaa waxay tahay oo ay rabtaa inay xadhigka bood samayso iyadoo caqula ku taagan, agteeda kalena saartay luqunteeda amaba qoorteeda dabadeeda. haddaba gabadhan ayaa waxaa laga rabaa muddo 1 minida gudaheed inay samayso xadhigka bood gaadhaya 24 jeer iyada oo caqula ku taagan. Irina iyo dhacdadeedan cajiibka badan ayaynu jaleecaynaa markana daawadayaal. Guinness World Record to break is 24. Are you ready? I'm ready. Irina, gabadhan lagu magacaabo ayaa World Guinness Recordka amaba buugga dhacdooyinka la yaab kale waxay kaga qayb qaadanaysaa oo ay doonaysaa in lagaga diiwaangeliyo dhacdadani oo ah
in iyada oo caqura ku taagan agteeda kalena geysay madaxeeda dabadeeda ay xarikabood samayso. gabadhan Irina ayaa haddaba waxaa laga rabaa muddo 1 minid ah in ay ku samayso iyada oo luqura isticmaalaysa xarikabood gaadhaya 24 jeer. bal waxaynu eegi doonaa Irina dhacdadani in ay u suurta gasho iyo in kale. Wow, what a pace. Very impressive. Ms. Roberts, you just attempted the Guinness World Record for most rope skips with one leg behind the head in 1 minute. The Guinness World Record to break stood at 24 skips. Ms. Roberts, the number of rope skips with one leg behind your head in 1 minute that you successfully completed was 29. Irina waxay ku guuleysatay sidaad arkayseen daawadayaal inay muddo 1 minid gudaheed ay xarikabood ku samayso caqura iyadoo agteedii kalena geysay madaxeeda dabadeeda qadar gaadhaya 29 jeer. waxaana laga rabay in ay gaadhsiiso 24 jeer balse waa ay ka kormartay. sidaasna waxay kaga mid noqotay dadka iyagu abaalmarinta ka hela World Guinness Record-ka. dhacdada ugu dambaysa iyo barnaamijkeena dhacdooyinka iyo toddobaadkani waxaynu ku soo qaadan doonaa nin lagu magacaabo James ayaa raba in uu koro dibi caag ka samaysan. dibigaasi ayaa haddaba waxa uu la warwareegi doonaa waxaana laga rabaa in uu dhakadiisa ku sugnaado qadar gaadhaya 1 minid iyo waliba 42 second. isaga oo gacan qura haysta ayuu dibigaasi dhakada ka saarnaan doonaa caaga. waxa la eegi doonaa bal inuu dibigaasi ka dhaco isagoo dibigaasina xoog u warwareegi doona. isku dayga ninka lagu magacaabo James iyo dhacdada ugu dambaysa iyo barnaamijkeena dhacdooyinka la yaab kalena aynu daawadayaal fiirino. So, in order to break the current Guinness World Records of 1 minute 42 seconds, Jamie's going to have to stay on. James ninka lagu magacaabo ayaa waxa uu rabaa inuu World Guinness Record-ka ku soo bandhigo inuu dhakada ka koro dibigan caaga ah. haddaba waxa uu rabaa in uu dibigan dhakadiisa saarnaado qadar aad u badan oo uu dibiganina la dhaqdhaqaaqo oo uu la warwareego. waxaa laga rabaa haddaba inuu dibigan isagoo oo aan wax kale isticmaalayn ku haysto oo qura gacantiisa oo kaliya amaba gacan qura. haddaba World Guinness Record-ku waxa uu ka rabaa inuu dibigan caaga ah ee dhaqdhaqaaqaya uu dhakadiisa saarnaado waqti gaadhaya 1 minid iyo waliba 42 second. haddii uu waqtigaasi gaadhsiin waayo ma geli doono World Guinness Record-ka laakiinse hadduu gaadhsiiyo amaba uu ka badiyo waxa uu ku guuleysan doonaa World Guinness Record-ka. bal dhacdadan iyo ninka lagu magacaabo James aynu jalleecno. Now at level 2, we're ramping up. A long way to go to level 9. His body is already placed for when the speed picks up, riding with the movements, trying to predict the beast. Rocking back and forth. Level 3. He competes in the United States. He won 3 titles there recently. Level 4 now. We're starting to get serious. The mad cow's coming alive. 5 seconds to level 5, Jamie. sidaad arkaysaan ee la socotaan weli dhakada ayaa uu ka saaran yahay isagoo dibigan caageena aad ula dhaqdhaqaaqaya. bal aynu eegno gunaanadka iyo waqtiga uu ka dhaco amaba uu soo gunaanado. 5 seconds, level 6. 3, 2, 1. Level 6 now. He's got 1 more level to go.
mastering all of that previous history and ability for this challenge tonight. Level 7. A few seconds to go to equal the current world record. Taking it all in his stride. 5 seconds to break the record. 3, 2, 1. He's broken the world record. It's up to us now. Come on, Jamie. One more level to go. Holy hell. He's still on. He's glittering. He's going. He's going. He is the only man in the world to make it to tonight. Awesome stuff. That makes it a new Guinness World Record. It is. That's an amazing 2 minutes and 4.5 seconds. A new Guinness World Record. That means you get one of these, my man. Congratulations, you now have your own Guinness World Record medal. james ayaa waxa uu ku guulaystay in uu dibigan aaga ka samaysan uu dhakadiisa saarnaado isagoo ku haysta gacan qura daqiiqado gaadhaya 2 minute iyo weliba 4 ilbiriqsi iyadoo laga rabay inaanu ka hoosaysiin 1 minute iyo 42 second sidaas ayaa uu ku galay buugga lagu qoro dadka la yimaada waxyaabaha cajaa'ibka ah intaas waxaan ku soo afmeerayaa barnaamijkii dhacdooyinka la yaab kale ee telefishanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland oo toddobaadkiiba hal mar aad ka dheehataan shashadaha telefishanka qaranka barnaamijkan daawadayaal waxaa dhanka kamarada iyo lightinka inoogu sugnaayo inoo hagaaya cabdi cumar jibriil waxaa kaloo barnaamijkani aada ugu mahad celinaya xasan baanaroma anigoo jamaal axmed naasir ayaa barnaamijkan idiin soo saaray xaggana idinka soo gudbinayay intaynu barnaamijkan mid lamida iskugu iman doono is aragtimo qal dambe ka hor waxaan idinkaga tegayaa fi amaanillah